wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tababar muddo 2 maalmood oo u furay agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda kaasi oo ku saabsanaa dib u eegista shaqada iyo shaqaalaha iyo maamul wanaagga. Kulan hawleedka oo socon doona muddo 2 maalmood waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha 14 waaxood ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda uu kulankani u leeyahay mas'uuliyiintan waxaana kamid ah hadalkiisii. Kulliyan saaka waxaynu iskugu nimid inaynu 2 cisho ku qaadano kulan hawleed halkan aynu fadhiyi doonno insha Allah oo ku saabsan sidii aynu u sii dhamaystiri lahayn geedi socodkii aynu dib ugu habeynaynay hanaanka maamulka shaqaalaha iyo shaqada. Labada cisho insha Allah madaxdii ugu sareysay wasaaradda ayaa halkan fadhiyi doonta, dood wadaag ka yeelan doonta, isla markaana aqoon isweydaarsi oo Saleebaanna uu nala joogo uu daadihin doono ayaynu ka wada geli doonaa. Nuxurkuna wuxuu noqon doonaa insha Allah sidii aynu platform u dejin lahayn aynu ku qiimayno ku abaal marino shaqada iyo shaqaalahaba. wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo furay kulan hawleedkan ayaa ka warramay muhiimadda uu kulankani u leeyahay mas'uuliyiinta iyo waajibaadka laga rabo. waxaanu mas'uuliyiintu ka codsaday in ay shaqooyinkooda ku dabaqaan macluumaadka ay halkan ka kasbadaan muddada kulanku socdo. waxaana kamid ah hadalkiisii. ujeedada tababarkan waxa weeye in laydinku tababaro, laydin tusaaleeyo, laydin xasuusiyo iyo dhowr jeer horena waynu arrinkan oo kale waynu suganimi. waxyaabaha halbowlaha ama tiir dhaxaadka waa maamul wanaagga. dibna waxa la doonayaa marka uu tababarkan inoo dhamaado inaan ku camal fashaan wixii aanu noqon wax lagaga tago warqadda waa inaan ku camal fashaan isla markaana waa inaan gudbisaan soo wax waliba Soomaaliya unugiyo Soomaaliya inta idinka hooseysa mas'uulka ka tiin ku tababara aan aqoonta balaadhin ka soo qaada inuu yahay labadan casharkan aynu isugu nimi seminaarka inuu yahay TOT training taa ka soo qaada.